madaxweynaha maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Cirro oo shaaciyay inuu gabagabo marahayo heshiis xukuumaddiisu ay la gashay Ethiopia. Cirro ayaa sheegay inay gabagabo u hadda marahayo heshiis ganacsi iyo marinbadeed oo ay xukuumaddiisu la gashay dalka Ethiopia, taas oo madaxda dalka Ethiopia sanadihii ugu dambeeyay ay soo celcelinayeen in ay laga maarmaan tahay Ethiopia inay hesho marinbadeed. waxaa sidoo kaleeto horay ay Ethiopia heshiis ula gashay madaxweynihii ka horreeyay Cabdiraxmaan Cirro markaasi Muuse Biixi oo markaasi isagana dhinaciisa u saxiixay marinbadeed lagu sheegay 20 kilomitir oo dheerara iyo sidoo kaleeto 20 kilomitir oo ballaca, taasoo Ethiopia la siiyay sida wararka hoose ay xilligaasi sheegayeen, halka xukuumaddii markaasi Muuse Biixina ay sheegaysay inuu yahay heshiis is-afgarad oo markaasi sanado kooban ah oo Ethiopia ay halkaasi isticmaalayso. Cirro ayaa hadalkiisa u muuqda in marinbadeed oo Ethiopia u saxiixay maadaama Ethiopiana ay aad u doondoonaysa waayihii dambe inay marinbadeed hesho. Ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmedna uu sheegayba in dad aan tiradoodu ka badnayn 25 milyan ay haystaan bad dheerarkeedu uu dhan yahay 5,000 oo kilomitir, halka 130 milyanna aysan marinbadeed xataa 50 kilomitir aysan haysanin, taasina aysan cadaalad ahayn. haddaba heshiiskan muxuu salka ku hayaa? ma Ethiopia ma waxa la siiyay marinbadeed mise heshiis ganacsi ayaa lala galay? Cirro ma wuxuu siiyay heshiis cusub miyuu la galay oo marinbadeeda? ma tii hore ayuu xoojinayaa oo Muuse Biixi tii hore uu la galay ayaa loo dhamaystirayaa? muxuu heshiiskan salka ku hayaa? bal waan dul istaagi doonaa hadduu allayno. waxaan dhanka kaleeto dul istaagi doonaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta gaadhay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia, halkaas oo ugu qayb galahayo shir muhiim ah oo Afrika ay ku yeelanayaan. safarka madaxweynaha ayaa ku soo beegmaya xilli xasaasi ah oo ismariwaa siyaasadeed uu ka taagan yahay gudaha Soomaaliya. magaalada Muqdishona ay ku sugan yihiin madaxweynayaasha maamulada Jubbaland, Puntland iyo waliba mas'uuliyiinta kale ee mucaaradka ee ay ku midaysan yihiin golaha mustaqbalka Soomaaliya. waxa uu sidoo kale ku soo beegmaya xilli wax is-afgarada aan laga gaarin halka shirka lagu qabanayo oo aad waliba loogu kala fog yahay, isla markaana ay golaha mustaqbalka mucaaradka ay leeyihiin shirka waxaa lagu qabanayaa xerada Xalane, halka madaxweynahuna uu leeyahay waxaa lagu qabanayaa madaxtooyada. ismariwaa adagna uu halkaasi ka taagan yahay. waxa uu sidoo kale ku soo beegmaya xilli wax ka bedelka dastuurka uu sii socdo, khilaaf xooggan uu ka dhex taagan yahay baarlamaanka labada gole ee dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaana uu baarlamaanku meel aad iyo aad u xasaasisan uu kala taagan yahay isaga dhexdiisaba. haddaba safarkaas iyo sidoo kale ismariwaaga siyaasadeed iyo xaaladda adag ee Soomaaliya ka taagan ee siyaasadeed ayaan soo qaadan doonaa hadduu alla idmo. soo dhawaada idinkuna aragtida igula wadaaga qaybta commentiga. aan ku bilaabay madaxweynaha maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Cirro ayaa shaaciyay in ay meel fiican marayso heshiis is-afgarad oo ay la galeen dowladda Ethiopia. Cirro waxa uu sheegay in Ethiopia ay ku heshiiyeen heshiis ganacsi ama ay la galeen heshiis ganacsi iyo sidoo kale marinbadeed. markii marinbadeed aad maqashid waxa kugu soo dhacaysa adiga muwaadinka in Ethiopia ay raadinaysay marinbadeed dadka Soomaaliyeed waxay kugu soo baraarugeen dhinaca Ethiopia oo mar walba ku soo celcelisa marinbadeed waa inaan helno. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed wuxuu yiri 5,000 oo kilomitir bay haystaan dad tiradooda 25 milyan aan ka badnayn, halka anagoo 130 milyan aan haysan xataa aan leenahay war waxaadna siisaan 50 kilomitir kaliya. anagoo intaasaan ugu filanay 50 kilomitir na siiya, inta kale 5,000 ee 4,950 kilomitir idinku iska haysta. anaga 50 bas aan ugu filanay, 50 na siiya ayaan ku doodaynaa buu leeyahay. oo dooda iyadu ay tahay cadaaladna ma aha buu yidhi in dad intaa tiradoodu leegtahay 5,000 oo kilomitir ay haystaan, annagana aan xataa ku baryootano warna siiya anagoo 130 milyan 50 kilomitir. cadaalad ma aha buu yidhi. Muuse ninkan la yiraahdo marka Cirro waxa uu sheegay in heshiiska gabagabaya Ethiopia marinbadeed ay siinayaan ee heshiis ganacsina ay la galeen. Muuse Biixi baa horaan arrinta u bixiyay oo xeebta Lughaya ayuu ka siiyay Ethiopia 20 kilomitir sida uu sheegay. laakiin ninkan hadda tira ma soo bandhigin,
laakiin heshiiskaas afgaradkaas waa gabagabuy kii hore ayuuna xoojinayaa baa la leeyahay xogtana soo gaadhaysa ay tibaaxaysa in heshiiskii hore uu yahay heshiiskan oo heshiis cusub oo Itoobiya lala galay uusan jirin waa kii hore ee Muuse Biixi uu la galay ayuu xoojinayaa oo cirra laga dhaadhiciyay Itoobiyana way ka go'an tahay oo mas'uuliyiinta Itoobiya way ka go'an tahay helitaanka marin badeed Itoobiya ay leedahay ma aha kiro ma aha deked la maal gashado ma aha waxa soo dhan saldhig military oo badda ma aha waa marin badeed Itoobiya ay leedahay oo biyaha badda casar inay hesho waa laabud xoog iyo xeelad si ay ku hesho arinta marka cirra waa ku dhawaaqay waa gabagabuy dadka Soomaaliyeed waxa la rabaa inay ogsoonaadaan inay diyaar noqdaan in arintaasi lagu baraarugsanaado in laga warhayo ayaa loo baahan yahay taasi waa qodob dhinacan kale haddii aynu eegno madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta gaadhay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya halkaas oo uga qayb galayo shirka midowga Afrika oo halkaasi ka dhacaya shirkaas sanad walba waa la qabtaa mar walba xaalad degdeg ah maatana waa la qabtaa waxa hadda muhiimada weyn oo hadda uu sii leeyahay waa shirarkii midowga Afrika ee qabsoomahayay way laakiin safarka madaxweynuhu xilligu ku soo beegmaya xilli xasaasi ah oo dad badan hadal hayn badani ay ka dhalatay iyadoo oo la leeyahay madaxweynuhu wuxuu safray iyadoo ay sugahayaan golihii mustaqbalka maalmana ay ku sugnaayeen magaalada Addis Ababa safar buu iska galayba madaxweynuhu safaradiisu iska sii wataada la leeyahay nimankii odayaasha ah ee mucaaradka ah ee loo yeedhayna magaalada Muqdisho u dhax fadhiyaan oo halkaas bay ku sugayaan waa arrimaha ugu hadal haynta badan ee aadka loo hadal hayo way si kasta noqotaba safarka madaxweynuhu waxay ku soo beegmaysaa xilli xasaasi ah xilli aad iyo aad xaaladeedu maartay u daran tahay ayay maartay ku soo beegmaysaa waa xilli marka aad iyo aad u xasaasisan aan wax heshiis laga gaarin halka shirka lagu qabanayo odayaashii ay meesha ku shirayaan baarlamaanku ay qayladooda sii wadaan wax ka bedelka dastuurka uu socdo ee muranka badan uu ka taagna arimihii doorashooyinka iyadana ay meel hadda lagu ogyahay aysan jirin ayuu ku soo beegmaya Dani Axmed Madoobe iyo sidoo kale togolihii kale ee mucaaradka ee samata ku jiray waxa weeye golaha mustaqbalka kamidka ah ee Dani Axmed Madoobe ay horboodayeen Sheekh Shariif iyo ra'iisul wasaarayaashii hore iyo wasiirada iyo xildhibaanada lahaa wayaaba yihiin waxay leeyihiin xageen wax ku dhaqaajina Xasan wuxuu leeyahay shirka waxa lagu qabanayaa madaxtooyada halka kuwana ay leeyihiin maya waxa lagu qabanayaa hotelka The Airport Hotel ee anagu aan deganahay ee xayndaabka waxa weeye xerada xalane ayaa lagu qabanayaa xayndaabka garoonka halkaas baan ku shiraynaa anagu naftaanada iyo amnigaanada kuma hadlayn karna bay leeyihiin madaxtooyada wax heshiisaba ma nihin rag isqabtay dagaalamay siyaasad adag ay ka dhaxayso ayaana sida awgeed idima iimaanayno bay leeyihiin meel marka aad iyo aad u xasaasisan ayaa la kala taagan yahay oo aad u adag ayaa la kala taagan yahay marka dad badani marka waxa hadal haynta ugu weyn ay tahay madaxweyne Xasan isagoo oon odayaashii aan wax heshiisa kala gelin ayuu safarrays ka sii watay Addis Ababa waa tagay haddana waxa laga yaabaa inuu ka sii duulo oo uu wadamo kale safar ku gaaro waliba aad baa loo saadaalinayaa Sacuudiga inuu orod ku tagi doono oo halka uu tagi doono ayaa aad loo saadaalinayaa iyadoo dhanka kalena ay jiraan arrimihii Somaliland meel xasaasina ay marhayaan madaxweyne Xasan oo waraysi bixiyayna maalin ka horna uu sheegay inay jiraan dalal Afrika ku yaala oo ayagu fiirsanaya danahooda gaarka oo doonaya inay aqoonsadaan ama ay raacaan ay taageeraan go'aankii Israa'iil kuwaasina la doonayo in sida ugu dhaqsiya badan laga hortago shirka naftigiisa midowga Afrikana looga hadli doono la rajaynayana in markaasi si wada jira ay wadamada Afrika ay u cambaarayn doonaan ayaa waxa weeye jirto iyadana taagan marka shirka naftigiisa waa muhiim dhanka marka laga fiiriyo ka hortagga ficilada guracan ee Israa'iil aqoonsiga ay siisay qayb ka mid ah dhulka Soomaaliyeed oo Somaliland ay aqoonsiga siisay waa muhiim iyada naftirkeeda hase ahaatee arrimaha ugu waaweyn waa khilaafka siyaasadeed ee Soomaalida dhexdeeda sida hadda mucaaradka iyo filla Soomaaliya taas baa marka dad badan waxay rajaynayeen intaan safar la gelin in laga heshiiyo halka shirka lagu qabanayo madaxweynuhu uu yiraahdo halkaasaan shirka ku qabanaynaa laakiin hadda safar degdeg aan u bixiye hal la isugo oo sida uu sameeyo